Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawow Soccer Academy. Fadlan subscribe inoo saar haddaad ka cusub tahay una sheer gari asxaabtaada si ay ugu faa'iidaystaan. Halkan waxaa la socdaa cashirkii koowaad ee aan ku baranaynay typing-ka website-kii online-ka aan ku baranaynay typing-ka. Weli waxaa noo socda oo aan ku wada jirnaa cashirkii. Waxaan maraynaa cashirka afraad. Waxaan ku baradkeenaynaa xarfaha kala ah F iyo J. halka aan ku soo qaadanay cashirkii saddexaad F iyo J oo space bar ah. Laakiin kani waxaan ku qaadanaynaa markaan si asigoo caadi ah. Waxaan ku siinayaa click markaan ku siiyo wuu raadinayaa xogaa. Midna ogsoonow faraha iyo xarfaha inaad isku aadiso waa lama huraan, waa wax daruuri ah. khaldi kartaa haddii aad qalado hore ugu sii soco, ha u istaagin oo dib ha u soo laaban. kadibna wuxuu ku soo bandhigayaa scoorka halkan markaad fiiriso meeshan waxa ugu horeyso accuracy waa 93 ayaan ka keenay. accuracy speedka waxay ku qoraysay ayaan leeyahay markaasi xawaaraha wax ku qoraysay ama intaad wax ku qoraysay. halkan waa inta daqiiqan ku jira durationka halkan markaas waa 21 oo ah markaas speedka aniga waxaan ku qoray. scoorkeyga marka wuxuu ii siiyey markaasi waa 1812. marka halkaas ay joogto marka waxaa kuu furan laba qodob oo ah inaad hore u socoto iyo inaad cashirka hadda aad ku laabato si speedka iyo waxaad ugu bedesho. marka aniga horaan u soconayaa cashirka shanaad ayuu gudaha ii jeedinayaa. marka cashirka shanaad waxaa introduction aan ku qaadanaynaa new key introduction waa xarafka D. always iska sax had iyo jeerba fartaada meeshaad dhigaysa. hana ilaawin inaad fadhiga aad iska toosiso oo qaabkan hadda shaashadan kaaga tusaayo aad u fadhiisato. sidoo kale farahaadana ku aadi xarfaha hadda aad kaga jeedo dhalada ama aad ka daawanayso muuqaalkan. faryareeda waxay ku aadaysaa waa A iyo S iyo D iyo F G iyo H way banaan yihiin. kadibna waxaad kasoo bilaabaysaa marka L iyo K iyo J iyo H markaasi andhaya markaasi aan kasoo bilaabo labada dhibac. kadibna ku xijiyo markaasi xarafka K L J backspaceka space barkan waxaad ku taabanaysaa labada suulood. marka aniga hadda waxaan rabaa marka xarafka D inaan baradkeeyo. maskaxdaada la soo celi si markaasi ay kula socoto waxa aad qoraysa adiga. haddii maskaxdaada markaasi aysan fadhinin waxa aad qoraysid markaasi ma sixi karaysid adiga. good job. that's introduction taasi waa hordhacay. kaasi waa maxay? waa hordhacay. halkaas marka aad joogto marka waxaa lagaa rabaa inaad ka shaqaysiiso waa labada far. waxaad ku qorayso waa fardheerta, labada farood ee fardheerta ayaad wax ku qoraysaa. waxaan bilaabayaa marka inaan qoro aan typing gareeyo. midna ogsoonow space barka lama huraan waad isticmaalaysaa. space barka meesha dheer waxaa la yirahdaa keyboardka dhexdiisa ama centerkiisa ku yaala. haddaa wax qalado ha soo laabanin oo horey u sii soco iyo markaasi kaa mashquulinin waxa aad qoraysid.
speedkeyga markaan waa 24 inkastoo iskoo aan keenay haddana speedkeyga 24 markaana waxaa lagu sameeyey completion waa la iskaga soo wada daray kale xarfihii kale iyo wixii kale ayaa la iskaga soo daray maskaxda soo celiya marka waa sidaan kuu sheegay taasoo kale ayaa markaasi la diidayaa inay kugu dhacdo anigoo igu dhacday fadlan subscribe inoo saar haddaad ku cusub tahay haddii aad ka faa'iido casharkaani like inoo saar una sheer garay asxaabtaada